waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaali oo ka dabqaday dhimaatadii gaartay inkastoo qadar ilaahay wax ka yimid ay haayeen waana ku mahadsan yahay gurmadka uu soo bixiyay aan u rajaynayaa ilaahay idankiis dhibaatadu joogto waayo jimcaale ka bilaaban waana ka horeysay waana ka dambeynaysaa in maamulka gobolka Banaadir oo iska xil saaro dadka danyarta aniga camala ama kuwa iga siiba nolol liito meelaha noocaas ku jira inay il gaar ku hayaan sidaas awgeed waxaan ugu mahadcelinayaa gurmadka ii sameeyay gudoomiyaha iyo degmada ilaa maalintii waxa ugu dhaceen ilaa hadda aan joogno ay daba taagnaayeen iyo taliyay saldhiga waan mahadnaqayaa ilaahay mahadiis ka mahadcelinayaa gacanta ay ka geysteen ayaga way la yartahay laakiin aniga waa ilo weyntahay ayaga xaqooda maamul aan waa ka yartahay marka loo fiiriyo miisaanka dawladda ama heer gobol marka loo fiiriyo way la yartahay ayaga laakiin aniga agteedu way ka weyntahay أنا باهيدي aniga ظروفta ugu xaydaaray aniga saacadan la hadlay ilmay waxay ku sugan yihiin aniga iyo meesha ay hadda ay joogaan kama murhal marka idinka waa la yartahay laakiin aniga waa ilo weynta marka ilaahay wax ka bariyaa iimaanka inuu naga yarto amiin qalbigana inuu ilaahay inuu loo xasiliyo qadartana waa ku qanacsana marka waa ka qaba maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada iyo taliyay saldhigu ilaa habeenkii dhibka ugu dhacay ilaa abtino arinteedii daba taagnay kulliga u mahadcelinaya walaalaha islaamkana waa arkayaan waxa la isugu yimid duruuf jimcaale kaliya maahan waa wax imaanayo horena u dhacay dalka dhanna ka dhacayo marka qolo waliba meesha joogto waa inay islaamnimo uga gurmataa oo nidaam ahaan uga gurmataa oo dadkeeda iyadoo ay u waxaysaa oo tusaale ka qaataan baaqan gudoomiyaha gobolka oo baxshay dhibku macnaha gobolkan Banaadir kuma ay ummadda Soomaaliyeed وين wax lagala baxa dii la yiraahdo noodan reebataraan lahayn kulay baaqaga waa gaarsiinayna ilaahay idinkiis wixii ku dambeeyo deegaan dadka meesha ku ah waa gaarsiinayna baaqaga inay iska aruuriyaan hadii dhibaato markaas halis ay jirto inay iska ridaan intii meesha ay process uga soo baxayna ku soo nooleen ilaa meer iska saaran waa ka gaarsiinayna baaqaas waa balan dadka degmooyinka gudoomiyaha shaqo ku lahayaa qaada doona in hawshaas waa kaaga mahadcelinaya gudoomiyaha gurmadka iyo soo bisay jasaakallahu khayran